soo dhawaada daawadayaasha daawanaya meel walba joogtaan waa mar kale iyo Hope Abuukar oo idin leh maalin wanaagsan waxaan rabaa inaan idin la qaybsado sida marka hore cajalooyin aan soo duubay idinku sheegay erayada aad iiga soo jiitay masiixa hadaladiisa oo aan ka fikiray haddaa jeceshahay fiirso cajalooyinkii ka horeeyay kuwaan maanta waxaa idiin hayaa mawduuc kale eray kale oo masiixa yiri oo aan aad uga fikiray asagana eraygaas waxa waaye qoriga ishaada ku jiro leeyahay iska saar intaadan saxarka isha walaalka ku jiro aadan fiirin waa eray yar laakiin macnaha ku jiro aad iyo aad iyo aad ayuu diib u yahay ama haddii la fiiriyo uu yahay mid aad qofka bini'aadanka u anfacayo waxaa ku adag bini'aadanka inuu garto qaladaadkiisa waxaa ku adag bini'aadanka inuu asaga isxukumo ama isfiiriyo mar walba waxaa aragtaa dabeecadda bini'aadanka ah xataa hadduu og yahay inuu qalad sameeyey oo dadka hortiisa oo la dhaho qaladkaas ma samayso wuxuu isku dayaa inuu isdifaaco oo naftiisa difaaco marka uu asoo og marka uu isla joogo inuu waxaas sameeyey haddaa isweydino maxaa ku kalifay insaanka in uu dadka hortiisa ka qariyo waxyaalaha uu og yahay qaladka uu sameeyey uu isku dayo inuu excuse u yeelo ama sababo u yeelo maxaa ku kalifay bini'aadanka taas su'aashaas horta adinka nooga soo fikira jawaabteeda marka haddaan fiirino ereygan qoriga ishaada ku jira iska saar inta aad saxarka isha walaalka aad fiirin lahayd bini'aadanka dabeecaddiisa waxa ah inkastoo iyaga aysan ogolayn qaladkooda ama ay qirtaan ama ay ogolaadaan inay qaldan yihiin haddana waxay arkaan wax walba oo qaldan oo qofka bini'aadanka kala sameeyo waa cajiib saxar ayuu ku tilmaamay rabbiga Yasuuc almasiix oo isha walaalkaa fuulo qalad yaruu haystaa laakiin adiga laga yaabay inuu qori kugu jiro oo qaladkaas qalad ka badan qaladkaas aad ku eedaynayso qofka kale ama aad fiirinayso laga yaabay isla mar ahaantaa inaad samaynayso laga yaabay qofaa been sheegay marka waxaa ku eedaynaysaa oo aad uga xun tahay beenta uu sheegay adigana habeenii maalin beenaa sheegaysaa bal ka warantaas marka erayada masiixa cajiibay lahaayeen marka wuxuu ku leeyahay intaa ku mashquuli lahayd dadka kale maxay ku qaldan yihiin maxay ku xun yihiin waxa ay samaynayaan waxaa lagu mashquulaa naftayda maxaan ku qaldanahay dhibaatooyinka aan dadka u geysta maxay tahay xumaanta igu jirta maxay tahay annaga been hadday nagu jirto ama ay xasidnimo nagu jirto ma qirno nafteenna kama hor imaano because maxaan uga hor imaan karin nafteenna waxaan ku mashquulsannahay qofka kale wuxuu uu yahay waa cajiib maanta laakiin waxa aan Hope Abuukar idinla talinayaa daawadayaasha adinka kaliya idinlama talinayo laakiin naftayda xataa aan kula talinayaa oo aan leeyahay bal maanta wixii ka bilowdo marka aan aragno qof aan qalad ku aragno inaan isfiirino bal aan isweydiino qofkan maseerka badan aniga maseer ma igu jiraa qofkan xasidnimada badan aniga xasidnimo ma igu jirtaa markaan arko qof been sheegaayo intaan ku eedayn lahaa aniga been ma sheegaa aan ku mashquulno oo qofka kale ha inoo noqdo miraayad aan ku qiyaasno si aan nafteenna uga nadiifino oo aan isheenna uga bixino qoriga ku jira oo aan arki karin laakiin aan aragno saxarka isha walaalkan ku jira marka ma rabo inaan idinku dheeraado laakiin kulan dambe iyo erayada masiixa waxyaalaha iga soo jiitay waa idin salaamaya kulligiin
waxaan leeyahay nimcadda rabbiga masiixa ku barkooba